السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada abna official insha Allah muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa sida u maareyn lahayd dhaqaalahaaga dakhligaaga iyo lacagta kusoo gasha sida loo maareeyo dhaqaalahaaga maareynta dhaqaalahaaga ma baahna inay kugu adkaato si walba oo ahaato mar walba waa isku dayi kartaa inaad maareyso oo adkaysato dakhligaaga haddaba kuwani waa qodobada aad ku baran doonto si aad u maareyn lahayd dhaqaalahaaga. Kow, noqo qof iimaan leh. Markii aad noqoto qof iimaan leh oo Ilaahay ku xiran, shanta salaadood tukanaya, si saxan u tukanaya, waxaad awood u yeelan kartaa inaad maareyso noloshaada oo idil iska badaa dakhligaaga. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad ahaato qof xasilan oo degan. Marba haddii uu qofku xasilan yahay oo uu degan yahay, wuxuu awood u yeelanayaa inuu fahmo xaaladaha nolosha, si loo maareyn lahaa, ugana gudbi lahaa haddii ahaan lahayd dhanka maaliyadda, haddii ahaan lahayd dhanka xirfadda, haddii ahaan lahayd dhanka qoyska, haddii ahaan lahayd dhan walba oo nolosha ku saleysan. Mar walba waxaad noqotaa qof Alle ku xiran, iimaanna leh. Sidaas la ajligeed, adigu waxaad awood u yeelanaysaa inaad maareyso dakhligaaga iyo dhaqaalahaaga. Labo, faham xaaladaada maaliyadeed ee hadda. Ka hor intaadan bilaabin maareynta lacagtaada si ka wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato inta aad haysato. Uma maleynayo inay hore u socon karto adiga ogeyn halka aad joogto, ayuu yiri David Carey oo ah qorsheeye maaliyadeed ee dalka Mareykanka. Wuxuu kugu talinayaa oo dadka la taliyaa inay ku bilaabaan qorshe maaliyadeed oo dhammaystiran oo qeexi kara socodka lacagtaada, dakhligaaga, keydkaaga, maalgashigaaga, iyo in badan oo ku xeeran maalgashigaaga, ama haddii ay jiraan waxyaabo kale oo ku saleysan dhaqaalahaaga. Inkasta oo qorsheeye dhaqaale uu ku abuuri karo qorshe maaliyadeed oo rasmi ah, looma baahna inaad qof u shaqaaleysiiso. Tallaabada ugu asaasisan ee ah inaad fahmi karto xaaladaada dhaqaale ee hadda jirta waa inaad fiirsato oo aad diiwaan geliso dhammaan dakhligaaga bil kasta ku soo gala iyo kharashyada, ayay tiri Wendy Terry oo sidoo kale ah la taliye qorshe maaliyadeed ee dalka Mareykanka. Saddex, deji ahmiyadaha shakhsiyadeed iyo yoolalka maaliyadeed ee aad leedahay. Markaad dejiso xaaladaada dhaqaale ee hadda, waxaa la joogaa waqtigii la go'aamin lahaa inay la jaanqaadayso qiimahaaga dhaqaale. Inaad ku guuleysato maareynta lacagtaada waxay kaa dhigi kartaa habka abuuritaanka miisaaniyad wax ku ool ah oo aad u fudud oo aad la qabsan kartid. Afar, dejinta iyo abuuridda miisaaniyadda. Qoritaanka miisaaniyadda oo qeexaya sida dakhliga loo isticmaali doono bil kasta dad badani kuma adka, haddana waxay noqon kartaa caqabad. Dadku ma yeelan karaan is-edbinta iyo is-xadidinta wax iibsashada degdega ah iyo waxyaabaha dheeriga ah. Waxay dareemayaan inay aad u xadidan yihiin, iyagoo qorsheynaya inay qarash gareeyaan qarashkooda mar hore si ay lacagta u dhammaato waa hore. Waxaad arkaysaa qofkaani asagoo is-celin karin oo aan is-xadidi karin oo haddana lacagtii qarash gareeyay kadibna taagan aakhiro mushaar ama zero. Si kastaba ha noqotee, maareynta miisaaniyadda waa helitaanka lacag caddaan ah oo lagu qarash gareeyo waxyaabaha adiga kugu muhiimsan. Waxaa intaa dheer, way fududaan doontaa inaad raacdo
miisaaniyad adiga kuu degsan. Haddii aad ogaato inaysan jirin lacag kugu filan oo aad ku bixiso wax kasta oo aad jeceshahay, raadi siyaabo aad ku yareyn karto kharashyada. 5. Samee sanduuqa lacagta. Qayb ka mid ah sida lacagta loo maareeyo si ka wanaagsan waa in lacag caddaan ah loo qoondeeyaa dhacdooyinka lama filaanka ah sida shaqo lumista in shaqada laga soo ceeriyo, ama hadday yimaadaan xanuuno iyo jiro ama xaalado dheeri ah taasoo kugu qasbaysa inaad u baahatid lacag dheeri ah ama maaliyad dheeri ah si degdeg. Qof kasta wuxuu u baahan yahay lacag dheeri oo degdeg ah oo xaaladaha soo kordha ugu baxsado. Habka ugu wanaagsan ee loo abuuri karo sanduuqani waa in lagu daro keydka miisaaniyadaada inaad u qorsheyso. Inta aad kaydayso waxay ku xirnaan kartaa inta lacag ee dheeriga ah ee aad heli karto. Waxaan kugu talinayaa inaad meel dhigato ugu yaraan 10% dakhligaaga bil kasta. 6. Iska bixi deymaha. Haysashada deynta waxay caqabad ku noqon kartaa la kulanka himilooyinka dhaqaale ee aad leedahay. Iska bixi deymaha lagu leeyahay kadibna abuur keyd oo aad ugu baxsato waxyaabaha degdega ee kugu soo kordhaya. 7. Jooji soo iibsashada waxyaabaha aadan u baahnayn, ama jooji inaad ka baxdo comfort zone wax loo yaqaan eriyada raaxada. Inaad joojiso wax allaala wixii kuu horseedaya raaxo iyo dhalaal iyo inaad ku fatahsho dakhligaaga ama lacagtaada, ama inaad soo iibsato waxyaabo aadan u baahnayn oo dheeri ah. Inaad aad isdhahdo nafsadaada ay jeclaysato, ama nafsadaadana aysan u baahnayn oo keliya aad iska soo iibsato, ama ay kugu soo dhacdo hebel buu haystaa, hebel buu soo iibsadaa, ama inay dhacdo kale inaad waxaan aad soo gadato oo aad meel iska dhigto oo aadan isticmaalin haddana oo aadan waxba ku qabsanin. Mar walbo iskontarool oo noqo qof nafsadiisa xakameyn kara oo dhaldhalaalka iska jooji kara. Waxaan rajeynayaa hadduu Alla idmo insha Allah muuqaalkiinu aad iyo aad kuu cajabiyey. Fadlan haddii muuqaalku ku cajabiyey waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga hadduu Alla idmo.